marna wadaad ayaan ahay marna qabiilaan naqanay waraha bulshada qudbasiro kuma joogo waxaan kaloo ku joogaa xoog iyo xayiyaan ku joogaa guul daro iyo fashi shantaay waa la xiray shantaay waa dhimayay shantaay waa la bukeeyay shantaay waa sidaa way dhamaalaada bilaal cidi u timaado uu og yahay salaamta uu ka qaadayaa fadhiiso ku leeyahay aniga shantaay oo ila sheekaystay xisaab hore hadayna jirin kabtan ayuub nabiga sallallahu alayhi wasallam abtirsiimadiisaan galaa aniguna waxaan ahay odadaaro kabtan ayuub ku gaaloobaya bilaal subaxii sabdida markaan u tagay bacda dhuhr ayadii waxay ku tiri waa dukanaysaa salaada aad baan ugu farxay ilmada bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaa mahadle ilaahigii dad muslima naga dhigay diin dhammaystiran shaamil ah maxfuud ah mutawaatir ah noogu deeqay marka xigta waxaan u mahad celinayaa bulshadu islaamku xaraash iyo xoolo jaban uuna u ahayn inta si buuxda ugu dayatay nabigeena sala allahu calayhi wasalam dhaqamada yahuud iyo nasaara inkirtay islaamka iyo dhaqankooda iyo xishoodkooda ilaashaday meel mariyey dhaqanna uu yahay dhaqankooda ayaan u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan maanta wax ka tilmaamo 3 qodob oo muhiim ah qodobka ugu horeeya magaalada muqdisho waxaa ku badanaysa oo si cad loo og yahay ajnabiga waddanka jooga iyo midka musaafirka ah ee muqdisho saacad jooga uu og yahay iyo midka deegaanka caasimadda waxaa ku badanaya sharmuutinimada sharmuutinimo markaad aragtane waxaa dhimanaya nasabka ilmaha wacalada ee wadooyinka la dhigayana muqdisho way ku bateen cunugii ugu dambeeyey tawfiiq baa la dhigay qaybta xigto gabdhaha baraha bulshada ku waashay horta waxaan ummadda muslimka ahay soomaaliyeed u sheegayaa haweenku ayaka isqaawiya ee ciduma qaawisa gabdhaha soomaaliyeed inta ilaahay dhooray ay waddanka meel walba ka degan ay xufaad ah ay muxajabaad ah maalin kale aan ka hadlaynaa magaaladu dhinacna way ka gubatay dhinacna way ka dhismaysaa waxaa maalmaha qaar lasoo bandhigaa gabdho qur-aanka xifdisan jirkooda qariyey wixii alla faray la yimi muqdisho dhinacay ka joogaan waddanka meel walbana waa laga helayaa laakiin inta baadiyeysanaa badan haweenku horta waxay samaysteen youtube channel la yidhaahdo dhalinta t v gabdhaha lagu qaawiyaa kaamiraamaanyay leeyihiin wax ka duubo jirkooda qayb walbay kusoo bandhigaan taa horta waa inaad la socotaan aaway waalidiintii dhalay gabdhaha aaway raggii la dhashay aaway adeeradood intay aadeen insha allahu rabbulcaalamiin baa wuxuu nagu leeyahay suuratu taxriim yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo quu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiina iyo wa ahliikum eheliyaalkiina naaran naar ka ilaaliya allow naarta aada nooga digayso siday u taala alla wuxuu uri naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu uu yahay annaasu dad iyo walxijaaratu dhagax naartaasoo calayhaa dushayda malaa'ikatun malaa'igay ahaatay malaa'igtaasoo khilaadun qalqalafsan shidaadun ad adag
malaa'igtaasoo laa yacsuuna aan caasinaynin allaha alle maa shay amarahum ou amray oo wayafcaluuna samaynaya maa yu'maruuna waxa la faray. war naftiina badbaadiya oo ehelkiina badbaadiya oo gebdhihiina edba oo xijaabka iyo asturka iyo diinta ugu kaalmeeya. soomaalidu hadda xilliga lagu jiro 80% gaalo raac weeyaan. hadda qoladan afrikaanta ah ee aan jaarka nahay walaalama nihine anu meelaan walaalo ku naqana ma aqaane laakiin jaarnimaan u ogolahay ayaa waxay bilaabeen caagadan yarka oo aan biyaha ka cabno ee shirkadahayna ay sameeyaan caafiga in biyo yar inta lagu reebo la tuuro oo caagaas qofka uu istaago oo cad hilib cuno. jaa muqdisho ka bilaawatay. soomaalidu jiliin ma laha, jiliinka gaalay kaga dayataa, ama gaal cad ha noqdo ama gaal madow, waa gaalo raac xaqiiq weeyaan. maanta imisaa dhaqankoodii loo caayay ya su-aashaas igi jawaaba. meeqaa dabagaab ku socoto, meeqaa timaha si xun u xiiratay, meeqa gabdhoodaa xijaabka dhigatay. nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laysa mina man tashabbaha bigayrina, naga mid maaha ciddaan cid naga baxsan ruuxii isku ekaysiiy. muxuu kalou yidhi laa tashabbahuu bilyahuudi walaa binnasaara, yahuud iyo nasaaro ha isku ekaysiinina. maanta sirwaalka sida tooska ah isku raacsiisan iyo midka jeexjeexaya qaalisan ya midka jeexjeexana qaalisan. markaa meelaha timaha lagu gaabiyo ama timaha lagu jaro ama timaha lagu qurxiyo aad tagto, in timaha si toos oo siman loo jarto sida shantaay oo kale, iyo in timaha la xirxiiro yaa qarash badan. timaha in la xirxiiraa qarash badan. qaybta saddexaad waxaan rabaa inaan u gudbo dhaawacii soo gaaray habeenkii sabdiga walaalkay bilaal bulshaawi iyo xaalkiisaa rabaa inaan wax ka tilmaamo. waxaan ka mid ahay dadka sida dhow ugula socdo xaalkiisa. isbitaalka waa ku booqday. bilaal wuu caafimaad qabiyaa, caafimaadka maalin uu meel jooga. bilaal ciddii u timaado wuu og yahay, salaamta wuu kaa qaadayaa, fadhiisa uu ku leeyahay. aniga shantaayo ila sheekaystay, adkaaraa soo saaray. laakiin maxaa meesha kula kulmay? waxaan kula kulmay bilaal waxaa ayeeyo u ah hooyo muslimada oo muuminad ah. wallaahi aad baan ugu farxay. bilaal subixii sabdida markaan u tegay bacda duhur, ayeeyadii waxay ku tiri waa dukanaysaa salaada. aad baan ugu farxay kelmadda. soomaalidu khayrka iskuguma kaalmeeyaan. wallaahi dadka isbitaalada ku jira way dayacan yihiin, salaada ma dugtaan. ayagoo og cidda soo dul istaagayso. dadka yurub ku nool ee dalka dibaddiisa ku nool, taleefonaadka kala hadlaaya, ee caawinaad weydiisanaya ayay salaadii ka tegayaan. qofku salaada goormuu ka tegi karayaa? waa markii uu caqligu ka tago, waa maalinka uu noqdo marfuucu lqalam. laakiin ruuxu intuu adduunyada joogo oo caqli uu leeyahay, salaada waa laga rabaa. maxaa yeelay ruuxa daa'imulxadadka ayay salaadu ka tegi weysay, salaada laga rabaa. salaadu waxay ka dhici weysay ruuxa daa'imulxadadka.
daa'imu lxadath maxaa la yihahdaa? waa ruuxa kaadida aan cisho karin, saxaradana aan cisho karin, ee saxaradu iyo kaadidu ay soo dhaafayso, salaada kama tegi kaliyo waa laga rabaa. runtii way uga gabaysay, halkaa buu ilaahay ka xusay. ilaahayna qur-aanka asaga wuxuu ku leeyahay waxaan ahay midka istaaga lagu xuso, fadhiga lagu xuso, jiifkana lagu xuso. aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim. adikr, ilaahay wuxuu leeyahay mu'minku iyo mu'minadu way iga yaabaan, way xusaan. istaag bay igu xusaan, fadhigana way igu xusaan, jiifkana way igu xusaan. wuu mudan yahay in ilaahay la xuso. cimraan ibnu xusein ayaa wuxuu leeyahay kaanat bi bawaasiiru fasa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama can salaati. bawaasiir baa i haleelay, nabiga sala allahu calayhi wasalam baa waxaan weydiiye u leeyahay wax ka weydiiyey salaada. kayfa nusalli, sidee u dukan? kayfa usalli, sidee u dukan? sidee u dukanaynaa? nusalli. wuxuu uri nabigu sal alay wasalam salli, duko qaa'iman adigoo taagan, duko salaada. fain lam tastadic, haddaad istaaga awoodi weyso oo bushi iyo wax lamida iyo dhaawac iyo wax kale ay ku soo gaaraan, faqaacidan, fadhi ku duko. fain lam tastadic facalaa janbin, haddaad fadhiga awoodi weyso oo xanuunku kugu siyaado, jiif ku duko. maanta dadkeenu way dayacan yihiin. qofkii keliyaha laga qabanaya ama labada keliyood baa fadhiisanayso, allahna badbaadiye. kuwa xanuunka haayana allah ka qaado. qofku wuu dhaawacmayaa. intaas oo bulsho muslimaha aadayso, hal qof uu dhahayo war salaadii ma dukatay ma jirto. maalinkan baraha bulshada soo galay, intaa bilaal baan warkiisa ku dhaafaya, wuuna raysanaya. maxaa yeelay dad wa wanaagsan oo qur-aanka iyo salliga iyo ducada iyo kayrka ugu kaalmeehaya kaag dhow, wuu raysanaya insha allahu tacaala. maalinkan baraha bulshada soo galay ilaa iyo hadda qayladu way dimi laadahay. culimmaduna waxay dhahaan kahratu siyaaxi daliilun cala alfashali. qaylada faraha badan waxay daliil u tahay guuldaro iyo fashi. shantaay waa la xiray, shantaay waa dhimayey, shantaay waa la bukeeyey, shantaay waa sidaa, shantaay waa sidaa, way dhammaan laadahay. baraha bulshada khudba siro kuma joogo, waxaan ku joogaa qaala allahu qaala rasuulu llahi. waxaan kaloo ku joogaa xoog iyo xayiyaan ku joogaa. marna wadaad ayaa nahay, marna qabiilaa naqanaya. waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo kabtan ayuub murtad miya mase waa muslim? daaci mukhtaar uu gaaleysiiyey ninka la yidhaahdo kabtan ayuub. magac mii saxsan yahay? ma ku saxsanaa masa uu qaldanaa? labadaasaan rabaa inaan ka jawaabo. horta kabtan ayuub waxaan leeyahay sano kontonaad baad lugta gelisay. walaalkeeyow cayda dadka ka daa. daaci mukhtaar waad u gaftay, waa aflagaadaysay, waalidkiisaa caysay, nasabkiisaa wax ka sheegtay, waad ku xadgudubtay. maadaama aada nin odaya oo baraha bulshada saameyn kule aad tahay, isma ogide walaalkay kabtan ayuubow cayda iyo qabyaalada iska dhaaf. qabiil baad ka dhalatay, qabaa'ilka soomaaliyeed bay ka mid yihiin. aniga kula hadlaya dadaan jeclahaad ka dhalatay.
dad gob ah oo aan martida aan lagu dhex dulmin oo aan socotada lagu dhex maagin ayaad ka dhalatay. gobolada Puntland gaalkacyana waan degay, Garowana waan ku noolaa, Boosaasana waan ku noolaa, dadaan garanayo waaye lagaga sheekayn maayo. xisaab hore haddayna jirin kabtan Ayuub nabiga sallallahu alayhi wasallam abtirsiimadiisaan galaa, aniguna waxaan ahay oda daarood. kabtan Ayuub ma ku gaaloobaya? ma ku gaaloobaya. maxaa yeelay Soomaalidu cunugaan aabba lahayn waxay dhahaan wacal. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. دينته ودين السند أبتسيمه ويا الله رب العالمين قرآن كوحا كسو قاضي أو الله هو كي شيء جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام وحو كيني نبي صلى الله عليه وسلم. نبي يهودي بي مهاجرين أنصار، مهاجرين أنصار يا كقاضي جيل عن جيل. أثر كلا أو مسلم مجلد كوكوات كويا لاجرا عليها هاي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. عبد الله بن مبارك اسكلم وعليها إن هذا العلم علميان دين ودين أي فانظروا أيغا أو سهمية أو هبية عمن تأخذون دينكم. عدة دينتين أضوا فليسان إيسان، عدة أد وحكا هذا إيسان. كابتن أيوب أنا يدخن كيسة دتك أن كهل الباكو جرع من علماء الدعاء جعل معها، لكن وحن كلا سارينا شخصية قفك كيسة هي شخصية هذا إيدي كان كلا سارينا نينكو ما دخن فينا نينكو أفكيسو نين هذا الكيسو وناكسن يهي معها بعد عيسى بدل. لكن قد يدان هذا تاجن كابتن أيوب لقما قال لي سيكره سؤال شو قدام بس هبل ومسلم هبل نوا قال يا حقوله وداد يرون مدح بورن وقميص قاطي أما وداد قروين أما ويلي يرو الضوب مدح الضوب طيب ما حقوله حقه ما لها يا حقوله هل كاسان كفيرين هنا. ابن القيم الويدي كلمة دان معويري الكفر حكم الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. الكفر حكم الله روحا وقال ومسلم وهل حريريو ولا هل سيو هل بوغضو يا لغوينين يا له الله باله يا كحيغو ثم رسولي maxay u baahan tahay idana بالنص يثبت سجن لا بقول فلان هبل هذه الكيس مو بهنا هذا السجن بأباهن تاعي داعي مختار مرك والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال باتاي ما اللي كنت على بدرته عد وجوه رئيسي داعي مختارنا أدوك مصامر قفكوا ديه كريا النبي صلى الله عليه وسلم الترسيمديد وحي قشاء النبي صلى الله عليه وسلم هدوير هدو الترسيمد النبي صلى الله عليه وسلم دتك أهل قوها وحيليهن أبترسو مساجد المقدشة كيستاو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي دهان واللي يسكت دي مركي وحلا سيناي مركي نطي نيشو مقدشة جوان لا عغفر بدنا الغصية والغو حريريا دادا مركي حنوصدان أنبا أي مرغاني دعا كدلبان
kuma gaaloobayo. laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam in laga been sheego iida nafteeda dhibaato weeyaan. xadiisku ugu dambeeya wuxuu leeyahay ballighuu cannii walow aayatan وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا روحي يقول بينها بورتا أصبو مفتئي الشيق يقول يهنس كديغايا وحان أنيقا بهن إيتيريا فليتبوأ مقعده من النار. نار تبوسكو كديغي لاي ووضيع. النبي صلى الله عليه وسلم وانقسم النهر داعي مختار وحي لمدا كابتن أيوب لما وانقسم النهر. النبي صلى الله عليه وسلم روحي أقفوا إن هلك الله جرى وسود وينينا إن لدفاع ونسود وينينا إن براها بالشدة ضدك كجرو رد أي ويران ونسود وينينا لا تقورو إتسود ويسو وايو وسود وينينا. لكن هدينا حساب ورجل كابتن أيوب قد يدي ماله رؤويري كما قالوا وايو دليلنا ولو وايي. السلام عليكم ورحمة الله.